maalintii Badr Cumayr waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaashii Quraysh oo soo dagaal tagay si ay ula dagaalamaan Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo asxaabtiisa. Cumayr waxa uu ahaa nin aragti dheer, maamul wanaagsan lagu yaqaanay. Quraysh ayaa u xil saartay inuu tirakoob ku sameeyo asxaabta Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee si loo ogaado inay wataan gurmad ama in dabin loo diyaarshay. Allahumma ansurna alayhim bi barakati Allahu akbar. Cumayr waxa uu gudagalay hawshiisa isagoo faraskiisa qaatay. Markii uu soo laabtay waxa uu yiri iyagu waa 300 oo nin, tirakoobkiisuna waxa uu ahaa mid sax ah. Waxa la weydiinay wataan wax gurmad ah, markaasuu yiri gadaashooda waxba kamaanan arkin, balse waxaan arkay dad aan gaashaan iyo gabaad midna wadan, seeftooda mooyaane. Ilaah baan ku dhaartay mid idinkeedii ka mid ah ma dilaayo mid iyaga ka mid ah ilaa midkiin laga dilo, iyaga oo kalena haddii ay idinka guulaystaan nolol dambe ma jirto ee maxaad ku taliseen. hadalka Cumayr iyo aragtidiisa waxa uu saameeyay qaar ka mid ah madaxda Quraysh, kuwaas oo ku dhawaaday inay ciidankooda soo ururiyaan oo ay ka cararaan fagaaraha dagaalka iyagoo aan dagaalamin. Si kastaba ha ahaatee, Abu Jahl ayaa ka hor yimid fikirkooda, markaas ay dib ugu helciyeen nacaybka ay muslimiinta u qabeen. reer Makka waxay Cumayr ku naanaysi jireen shaydaanka Quraysh, balse maalintii Badr shaydaanka Quraysh waxa uu sameeyay waxaan waxba u tarin qoomkiisa. ciidankii Qurayshna waxay magaalada Makka ku noqdeen iyaga oo jabay. wiilkii Cumayrna waxa uu ka mid noqday dadkii ay muslimiintu qafaasheen. maalin maalmaha ka mid ah iyadoo Cumayr uu la fadhiyay naadirkii Safwan bin Umayya, Safwanna waxa uu nacayb fara badan u qabay dadkii dilay aabihii oo la oran jiray Umayya bin Khalaf, waxaanu ka mid ahaa dadkii lagu dilay dagaalkii Badr. Cumayr waxa uu safray magaalada Madiina isagoo doonaya inuu dilo suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. markuu yimi magaalada Madiina waxa uu aaday dhinaca masjidka. kadib markii suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uga sheekay sida ay u qorsheeyeen dilkiisa isaga iyo saaxiibkiisa Safwan, Cumayrna waxa uu isla goobtii ku qoray inuu yahay Maxamed rasuulkii Alle naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. maalin maalmaha ka mid ah Cumayr bin Wahab oo keligii meel iska fadhiya kana fikiraya qiimaha iyo wanaagga islaamka ayaa waxa uu xasuustay dagaalkii Badr iyo maalmihii uu muslimiinta dhibaateyn jiray iyo sida sharafta leh ee looga cafiyay dambiyadii uu horay u soo galay. markuu islaamka qaatay ee uu yiri waxaan qirayaa Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee inuu yahay rasuulkii Ilaahay. Cumayr ayaa u tagay Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxaana uu ku yiri rasuulkii Allow waxaan ahaa mid u dadaala sida u damin lahaa iftiinka Alle aad u dhibi jiray dadka Alle rumaysan. hadda waxaan jeclahay inaad ifasaxdo waan aado magaalada Makka si aan dadka ugu yeero Alle iyo rasuulkiisa iyo islaamnimada. waxaa laga yaabaa inuu Alle soo hanuuniyo, haddii kalena aan ku dhibo diintooda sidaan asxaabta ugu dhibi jiray diintooda. waxay maalmuhu wareegaan. Cumayr ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Makka isagoo seeftiisa galka uga baxsan tahay, dagaalna u diyaarsan. qofkii ugu horeeyay uu la kulmay waxa uu ahaa saaxiibkiisa Safwan. xogaa hadal ah ayay isku tuureen, balse Cumayr socodkiisa ayuu iska sii watay. waxa uu galay magaalada Makka isagoo muslim ah, halkii maalmo ka hor uu ka tegay isagoo gaal ah. magaalada Makka ayuu galay si la yaab leh isagoo u eeg Umar ibn Khattab radiyallahu anhu maalintii uu islaamay. isagoo muujinaya islaamnimadiisa ayuu yiri Ilaah baan ku dhaartay inaan ka tegaynin inaan gaalnimo la fadhiistay, haddii ay jirtana waxaan la fadhiisan doonaa islaamnimo iyo iimaan. Cumayr bin Wahab radiyallahu anhu waxa uu habeenayay maalin si muuqata iyo si qarsoonba u muujinayay islaamnimadiisa. qalbigiisa waxaa ka buuxay iimaan, nuur iyo hanuun. carabkiisana waxaa ka socday erayo xaq ah. gacanta waxa uu ku watay seeftiisa, taasoo isaga edbinayay gaalada wadooyinka taagan ee rabay inay xaqa gacmahooda ku daboolaan. dhowr isbuuc kadib waxa uu gacantiisa ku soo islaamay muslimiin fara badan, isagoo u soo kaxeeyay dhankii magaalada Madiina oo maalmo yar ka hor ugu tegay dilka Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee isagoo wata seef sumaysan. maantana waxa uu hogaaminayaa muslimiin fara badan oo gacantiisa ku soo islaamay. Cumayr bin Wahab radiyallahu anhu waxa uu Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee kala qayb qaatay dagaalo badan sida furashadii Makka. wixii intaa ka dambeeyayna Cumayr waxa uu dadka ugu baaqi jiray diinta islaamka ilaa gacantiisa ku soo islaamay dad aad u fara badan. Allah ha sharfo Cumayr oo qabrigiisa Allah u nuuriyo.